siyaasiga da'da yar ee Axmed Maxamed Booq iyo xubno kamid ah dhalinyarada magaalada Gabiley oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Askar ee magaalada Gabiley ayaa cambaareeyay madasha wada tashiga oo ay sheegeen in muddooyinkii u dambeeyay xudxudintii qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Gabiley waxayna ugu baaqeen ku daba faylaan saddexda xisbi qaran ee dalka ka jira iyagoo dhalinyaradani tilmaamay in aanay ogolaan doonin cid kasta oo wax yeelaysa xasiloonida gobolka Gabiley. dhawaaq iyo xudxudasho iyo dhabar taabasho bariyahanba madasha wada tashiga degmada Gabiley ka waday iyo gobolkeeda Gabiley waxaan leeyahay Gabiley ma noqonayso qumbul duniya horashiimiye Nagasaki lagu tijaabiyo noqon maysan lahayn waxaan leeyahay ninka dalka hoggaankiisa hankaga jiro hadduu culimo yahay hadduu siyaasi yahay waxa laga soo baxay nidaamkii beelaha waxa loo soo gudbay habka asxaabta ninku asxaabta qaranka uu dabada soo qabsanay waxaan leeyahay arintan waqtigu ka dhicin ku kala beer asxaabta qaranka jirta oo ku xaadiraan u leen magaalada Gabileyna uma ogolin dhalinyarteeda dhabarka soo taabatay baanu nahay idin kama yeeranayda kama aqbalna dalkan iyo qarankan in lagu baabiyo dawladda maanta jirtaana waa dawladii wax qabadka waa dawladii horumarinta waxaan leeyahay ninka shalay iyo maanta Gabiley farqa u dhaxeeyo u garanaya Gabileyna waxaan u aqoonsanahay meelay xisbiga kulmiye laga aasaasay ee aqlabiyada ka ilaa maalinkan maanta waan ku hadaan nahay dhalinyarada maanta reer Gabiley waxaan ka hadlaynaa maanta in madasha wada tashiga iyo tashida qaranku aan waxba ka jirin gobolka erayga madal iyo gole waa zeyn wax ku kala duwan ma jiraan saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda mooyaan wax alla wax qoraan diyaar u nahay ma jirto Gabiley wax madasha wada tashiga la yiraahdo oo ka jira ma jiro wax la waxay sheegi karaan sharciina ma aha anagu waxaan ogolnahay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka taliya ayuu ma ogolnahay ka dhalinyar ahaan waanu soo dhaweynaynaa talada saddexda xisbi qaran laakiin wax madasha wada tashiga la yiraahdo oo halkan Gabiley ka talin kartaa ma jiro horta madasha wada tashigu ma aha xisbi loomana aqoonsana in ay xisbiyada haddii doonayaan in xisbiyada ku biiraan way ku biiri karaan laakiin looma ogola in Gabiley ka bilaabaan qas iyo in yiraahdaan shirarban ku qabanna dhalinyaradina anagoo ah dhalinyaradii Gabiley waxa si weyn ku soo horjeednaa Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley.